nabadiyo nolol intaan xamanay astaghfirullah inaan niraano maxaad diidahay dadka libintooda waa loo ogolaa walaalka hadaa sharax xaqirtay been ah ku tuuntay maanta hadaa runta ogaato waxa loo baahan yahay inaad ku dhiirato inaad runta sheegto ciidanka electric ay maanta hadalhaynteedu ay taagan tahay Soomaaliyeed libintooda maxaa Cabdullaahi Farmaajo iska leh iyo tiimkiisa nabadiyo nolol sababtoo ah waxay u dulqaateen wixii eed ku dhacayay wixii tuhun qaldan ku dhacayay wixii waxa weeye been laga sheego dhan waa u dulqaateen waxaan kamid ahaa dadkii aaminsanaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee electric tababarka lagu qaaday in mar hore la iibsaday wax kale oo aniga ku tilmaamaqan dhalinyaradaas waa la iibsaday cid lihi karta xitaa media inta soo istaagto waa noolyihiin ma jirto yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamed ninna kuma dhaco inuu idaacad inta soo istaagay dhalinyarada aan iibsanay halkaas ay ku dambeeyeen kuma dhaco maantay markii aan arkay ciidan inta la eego waxa weeye madaxweynihii hor taagan yahay waxa weeye wasaaradda cadaaladda social media ayadaaba yaxyaxadaba marka runtii dadkii ka shaqeynayay ciidankaas dagaalka qayb galay iyo kan bay sameeyaan markii ciidanka wadanka yimaadaan ay arkaan way yaxyaxi doonaan waa yaxyaxsana ilaa hadda Soomaaliya waxay horumarka la gaari leedahay markii runta ogaadaan daaweynta biyo-baxa degdega dhalmo la'aanta kugu raagtay dhalmada alla ayaa bixiye dhiciska iyo cudurrada ku dhaca taranka ayaad ka helaysaa Marwa Fertility Center nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda benti ay ku sii madax adeega markaas sanado ku qaadataa inay iska daba wareegaan cidii doonaysa inay iska sii madax adeegto anu waxaan leeyahay ma haboonay ka soo laabto wadada madax adeeg maantay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo kamid ahaa dadkii aaminsanaa ciidankaas inaan meel lagu sheegin asagii ayaaba soo tabinayo hortaaganba wax marka anagu aan darbiyada madaxa loo sii dhacnaa meesha ma yaalaa Soomaaliyeed runta hal la qaato shacabka Soomaaliyeed maantay dawladnimada media ay kala socdaan looma baahna shacabka Soomaaliyeed ayagoo maanta runtii u jeeda in wada dheer la soo marsiyo la wareejiyo waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meesha dhow in wax laga tuso ciidankaas waa ciidan Soomaaliyeed madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa tababarka u direen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo tiimkiisa maanta jooga oo shalay aaminsanaa ciidankaas in xabad aysan ka noolayn meel aan lagu sheegin ayaga maanta soo tabinayo hortaagan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo tiimkiisa hadda joogana waxaan leeyahay fursad qaali ah haysataan fursadiina ka faa'iideysta sababtu maxay tahay ciidan tababaran oo diyaarsan oo tiimkii idin ka horeeyay diyaariyeen ayaa maanta hortaagantiin idinkoo shalay aaminsanaa inaan xabad laga hayn ciidanka waa in qaranka Soomaaliyeed uga faa'iideystaan idinkuna ka faa'iideysataan hadda shaqada bilowdeen oo shaqada soo gasheen fursad haysataan ka faa'iideysta ragga idinka dambeeyana u diyaarsha sidaan oo kale ciidan diyaarsan oo la hawlgala ma ogtahay inaad ehelkaaga lacag u diri karto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada adigoo isticmaalaysid Baysi waa application ka caawinaya dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa inay eheladooda lacag u diraan iyagoon tagin xawaalad loo diraha lacagta waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta sida EFC SAD Sahal M-Pesa Kenya MTN ama akoon bangigiisa hadda kala soo deg application-ka Baysi App Store-ka ama Play Store-ka adigoo ku qoraysid Baysi